xisbiga mucaaradka wuxuu ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Soomaaliland uu dhaqan gelin waayo inta ka horeysa 26 Juun ee sanadkan aynu ku guda jirno oo ku eeg madaxweynaha xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo heshiiska ay dhawaan ay kala socdeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ee lagu soo afjarayay khilaafkii ka dhashay muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada aanay aqoonsanaan doonin xukuumadda talada dalka isla markaana la isugu iman doono shirta la qarana heshiiskii axsaabta qaranka ay ku heshiiyeen iyadoo madaxweynuhu aanu ansixin ayuu dalka ka tagay isla markaana guurtidiina waata labada bilood ee fasaxa ay galeen haddaba mowqifka xisbiga wicid ayaanu halkan ka cadeynayna mowqifka xisbiga wicid waxa weeye 18 cisho ayaa ka haray 26 Juun waqtigii loogu tala galay waqtigii madaxweynuhu dalkan madaxweyne sharciga ka ahaa haddii heshiiskaas 18 cisho ka haddii heshiiska uu madaxweynuhu ansixin waayo ama dalka carabta ha u dhoofo ama UK ha qabto ama Mareykan ha u dhoofo 18 cisho gudahood hadduu ku ansixin waayo oo uu dikreeto ku soo saari waayo xisbiga wicid wuxuu taagan yahay 26 Juun inaan la aqoonsanayn xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana noo qorshaysan in aanu qaban doono shir qaran oo lagaga tashanayo sidii dawlad doorasho dalka gaarsiisa loo soo dhisi lahaa dhanka kalena xogayaha warfaafinta ee xisbiga wicid ayaa dhaliilay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku joogaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta shacbiga reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in safarka madaxweynaha uu midmadow badan oo aad u badani uu ku jiro sababtoo ah wasaaradihii ku shuqulka lahaa hawshan uu madaxweynuhu u baxay midna lama socdo wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo wasiirkii qorsheynta Saad Cali Shire labadaba safarka kuma jiraan oo way ka maqan yihiin waxa isku beegmay oo shacbiga reer Soomaaliland isweydiinayaan safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Imaaraadka iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka oo isaguna shalay toole ka degay dalka Muqdisho ama dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya isagoo halka kula yeeshay shirar madaxweynaha dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya shacbiga reer Soomaaliland iyadana waxaan leenahay safarka madaxweynaha midmadow badan baa ku jira weligiin bay idinka qarannimada ka shaqeyn jiray hadaatiin dadka dibadda iyo dadka gudahaba safarka waxaan leenahay wixii xog ah hala soo xiriiraan xisaabta mucaaradka